asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan idinkugu hayaa waxyaabaha kala duwan oo loo baahan yahay inaad gacmahaaga dhaqdid kadib marka aad taabatid, kuwaasoo xambaarsan jeermis oo aad u fara badan. Lacagta maalmahan dambe inta badan dadka waxay isticmaalaan kaararka bangiyada ama kuwa lacagta lagu shubto, laakiin mararka qaar waxaad u baahnaan kartaa lacag kaash, shilimo ama waraaq. baaritaano dhowr ah ayaa sheegeen in lacagta caddaanka ama kaashka ah in ay si weyn ugu qayb qaadato kala gudbinta jeermisyada, ayna sidoo kale ka qayb qaadan karto isku gudbinta fayruusyada iyo bakteeriyada. waxaa sidoo kale ay baaritaano kale sheegeen in waraaqda lacagta iyo shilinka birta ah ay xambaarsan yihiin jeermis sida jeermisyada kala ah E. coli iyo salmonella. Khataarada albaabyada, birta la qabsado ee jaranjarada iyo birta la cuskado ee gawaarida shacabka waa meelaha zaa'idka loogu baahan yahay inaad gacantaada dhaqdo markaad taabatid kadib. meelahan la qabsado ayaa waxaa kor saarnaan karaa jeermis aad u fara badan oo aysan ishaadu qabo karin, gaar ahaan waqtigan oo socdo cudurkan coronavirus, kaasoo ku dhiga waxyaabaha adag dushooda uusanna ku noolayn hawada. waraaqda dalabka ee maqaayadaha waa meelaha ugu nugul ee ay jeermisyadu ku koraan, sababtoo ah gacmaha dad kala duwan ee dadka taabta warqadda dalabka ayaa intoodii badan qaba xaalado caafimaad ee kala duwan, taasoo micnaheedu tahay haddaadan dhaqin gacantaadu marka aad taabatid waraaqda kadib, aad naftaadu u soo jiidi karto khatarta ah inuu kugu dhaco fayruuska ama caabuqa. allahna kaa koriyo. taabashada shaashadda telefoonada ama moobilada, waxaa muhiim ah in aad gacmahaaga dhaqdo mar walba aad taabatid, ama ha ahaato moobeelaha dadweynaha shaashadooda, telefoonkaaga ama shaashad walba oo la wada isticmaalo sida tv-ga oo kale. alwaaxa lagu jarjaro hilibka, jikadu waa meesha ugu jeermiska badan. laga nadiifiyo jeermiska ama wasakhda ee maacuunada iyo alaabta la isticmaalay, iyo cuntada aan la karinin keliya ma ahan, balse waxaa sidoo kale loo baahan yahay la nadiifiyo istiraashooyinka jikada, suufka, alaabta lagu dhaqo, miisaska iyo meel walba oo ka mid ah jikada. cilmi baaris la sameeyey ayaa waxaa la ogaaday in 326 nuuc oo bakteeriyo kala duwan ay ku nool yihiin suufka lagu dhaqo alaabta. khalimaanta dadka kale, mararka qaar waxaa lagama maarmaan ah inaad asxaabtaada khalin ka qaadato ama la isticmaasho si aad wax ugu qorato. waa caadi, laakiin hubi inaad gacmahaaga dhaqdid markaa isticmaashid kadib. khalinka xafiisyada yaala waxaa uu 10 jeer ka jeermis badan yahay fadhiga ama tuunjada musqusha celcelis ahaan. allah yakrimkum, kaasoo halkii inji oo ka mid ah uu xambaarsan yahay 200 nooc oo bakteeriya ah. furka shaambada, waxaa loo baahan yahay inaad gacantaada dhaqdid mar walba aad taabatid furka shaambada. taas wax micno ah ma samaynaysaa? jawaabta waa haa, sababtoo ah marka aad taabatid gacantaada waa wasakh. bakteeriyada aad ka nadiifinaysid gacmahaaga ayaa ku harayo furka shaambada marka aad taabatid.